بسم الله الرحمن الرحيم. مدحونا جمهورية الصومال المدن أحمد محمود سلايو، مدحونا كحيجين كمدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيرعي، وزير كمدحتوي ذا يوم مسؤولين كترسل حكومته أيام مانتا حرمتا مدحتوي ذا مجرد هالجيسة وحيكون قابلين جراد جامعة جراد إسماعيل دعالي وضيال وحجرد مسؤولين سياسيين كسوة شدة قبل كسول runtii waad ogeydeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisu dalkan markii uu yimid gobol nabadeed oo ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto ayuu fidiyay cidii wax tabanaysa xukuumaddan inay dhageysanayso cidii wax tabanaysa inay ka qabanayso waxtarkeega xukuumaddu inay meel walba gaarsiinayso cid walba Soomaaliland ka soo jeedaaba waxtarkaasi iyo horumarkaas dalka socda inay qeybta ay ku leeyihiin ay ka qaataan dawladdu waxtarkeega inay gaarsiiso ayuu madaxweynuhu horeba ugu ballan qaaday جراد جامع يعقاش يوحجرت ككل السعودية مالته يحرمت مدحتوية مدحونه وكو قابلين وحيكون رمين كانت هيك قادرين ينهر مرة ضلك سيدا مرول بقى وقت كستبا يديات كويهين قرر مدى الصومالي لان يميل مرين تيدا سيدا مرول بديات كويهين إن أي واحد كقبطار وحين نمتقليده الدركين يدلكين يدتين كوكين نمتقليده وحكروي وورين مدحوينه deegaanada gobolka Sool waxyaabaha uu tabanayo dhinaca horumarka loo baahan yahay in wax laga qabto ay ka warameen iyo baahiyaha jira runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu jeediyay hadal dheer oo kaga waramay taariikhda dalka uu leeyahay sidii midnimada lahayd sidii wadajirka lahayd ee guud ahaanba markii xorriyadda dalkan loo dagaalamay ee Ingiriiska lagula jiray qaybtii ay rasuul ku lahaayeen hormuudnimada ay ku lahaayeen iyo kaalintii ay ku lahaayeen waqtigaasi dheer wixii ka dambeeyay iyo halgamadii la soo maray waxa kale madaxweynuhu uga waramay 19 go'aankii dib u soo noqoshada amba dib u socodda qaladkii dhacay 60kii ee magaalada Burco lagu gudoonsaday in Soomaaliland ay dib u soo noqoto rasuul kaalintii ay ku lahaayeen رئيسول waxay ka qaateen garaadadooda iyo ugaashooda iyo waxgaradkooda kaalin mudakarnimo oo hormuudnimo ka qaateen waa tii lagu socdaa waa tii la doonaya in laga meel dhaliyo waa tii la doonaya in midhaheegii way muuqdaan oo midhaheegii Soomaaliland waa nabadda waa dawladnimada waa ismaqal waa kala dambeynta waa dhismaha qarannimo iyo xagidiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaayo mar walba uu ku taamayo in dalkaasi oo ka sameeyo isbedel daba oo ummaddu ay tareento aad iyo aad baa la isku waramay madaxweynuhuna taariikhda dheer ayuu ka soo waramay sida mar walba xukuumaddiisu ay diyaar ugu tahay waxyaabaha iyo adeegyada loo baahan yahay in dadka la qabto wixii xukuumaddu awoodeeda ay haysamayna la qaban doonto oo diyaar ay u tahay xukuumaddu inay hawshaasi wax ka qabato runtii kulankaasi jawi fiican buu ku dhacay jawi farxadeed buu ku dhacay jawi isqancin buu ku dhacay jawi in qarankaasi nabadiisiyo dhismihiisa dhinac loo wada jeediyo ayuu kala waxa kaloo mataqaana ugaasha iyo waxgaradka looga waramay guud ahaanba hawlaha dalka ee soconay xukuumaddu waxyaabaha ay ku mashquulsan tahay dhinac walba hab noqoto caafimaad noqoto waxbarashada iyo adeegyada kale aasaasiga dadkeena u ah laga marmaan inay helaan ayaa runtii guud ahaanba looga waramay aad iyo aad buu kulankaasi farxad iyo jawi farxadeed buu ku dhacay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.